dhakhaatiir marka tagto waxa laga yaabaa isagoo inankii neersinku jooga ama inankii waxa weeye neeraska uu joogo in dhiig laga qaadayo qof dumara iyadoo waxaan leeyahay gabadh laga qaadayo oo inani ay joogto inan dhiigga ka qaadi kartaa inuu gabadha intuu gacanteeda marada ka qaado nin dhalinyaro intuu gacanta ula tago uu dhiigga ka qaado soo maad fahmin ama uu irbad ku mudo iyadoo hablo mudi karaya ay jiraan ay dhakhtarkiiba la joogaan walidaalika sidaas si leeg waxa la mid ah walaalayaal in hablaha neersinka ama waxa weeyaan shaqaale dhakhtarka jooga iyadoo inamadii ay joogaan oo ay raggii iyo markaa nimankii dhiigga ka qaadi karayaan inay inantaytay soo cararto ragga markaa waxaanta dhiig baan kaa qaadaya oo iyadu tira dhiiggii baa ninka kaa qaadaya gacanteeda la gasho iyadoo wax daruuro oo keensaday aanu jirin arrinkaasi ma bannaana waa inay dhakhaatiirtu ku baraarugsanaadaan laakiin in la yidhaahdo waxaa laydin akhrinaya xeer caalamiya oo ah dhakhaatiirtu xuduud ma leh arrinkaasi waa arrin khatara xuduud qofku hadduu dhakhtarku muslim yahay xuduud wuu leeyahy wa tilka xuduudullah falaa taqrabuuha wa tilka xuduudullah falaa tactaduuha buu ilahay xadka ilaahayna lama dhaafo soo maad fahmin markaa dhakhtarow haddii ay kuu joogto inan dumarkii kuu qaban karaysa shaqadan inanta u diro dumarkaa kuu qabato nin muslimaad tahe haddii inanay aad meeshii joogto oo nimanna ay joogaan dhakhaatiiroo kula midi waxba ragga gacantaada ha la geline inamada u dir ka warran markaa haddii la waayo hadday dhacdo oo gabadhii markaa loo waayo inan markaa dawaysa ama inan jidhkeedii eegta loo waayo lidaruura ayay ninkii dhakhtarkaa ugu bannaanaanaysa wadaruuratu tubiixu lmaxduuraat daruuraduna waxaa xaaraantaabay banaysa taana iyadana soo maydaan fahmin haddii sidaasi leeg ninkii cid irbad ku muddo la waayo ama cid wax u qabata la waayo dumar mooyaane waxa weeyaan isagana sidaasi leeg waxa weeyaan cawradii way u bannaanaanaysaa markaasoo gabadhii ninkii waa u shaqayn kartaa intaa wixii ka soo hadhay in la iska dhigto jidhkii gabadha aad iska taataabato adigoo habluu kuu qaban karayaan gabadhina ay ninkii iska taataabato iyadoo la dhakhtar baan ahay dee arrinkaasi islaamnimadii baan ogolayne halkaa dhakhaatiirtu iyadana baldiba hau yareegaan waa arrin aad u muhiime soo maydaan fahmin waa inay ku baraarugsanaadaan walaalayaal oo de qofka hadduu muslim yahay waa inuu muslimnimada ilaashada haddaba bal waxaad ka warran